waxaa maalintii labaad sii soconaya mudaharaado lagaga soo horjeedo maamulaha kastamka degmada Sayla Faisal Roble Firin iyadoona sidoo kale isla shalay uu ka dhacay mudaharaad noocan oo kale ah balse mudaharaadka degmada Sayla maanta ka dhacay ayaa noqonaya mudaharaadkii ugu ballaarnaa ee ka dhaca degmada Sayla shacabkani ku dhaqan degmada Sayla ayaa waxa ay ka cabanayeen kadib markii uu deer kaga xidhay dikada degmada Sayla oo inta badan ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan degmadani Sayla iyagoona sheegay inuu dib uga soo celiyay dadka kalluumaysatada iyo sidoo kale dadka muruqmaalka ah ee ku nool deerkan ay sheegeen inuu kaga xidhayo dikada Sayla maamulaha kastamka degmada Sayla ayaa caqabad ku noqonaya nolosha dadka ku nool degmadani Sayla sidoo kale toddobaadadii u dambeeyay ayaa waxa ay cabasho u marinayeen saxaafadda maamulaha kastamka degmada Sayla inay wax ka qabato xukuumadda Somaliland balse ayna waxba ka soo bixin shacabkani ku dhaqan degmada Sayla ayaa iyagu waxa ay saaka ku waabariisteen dhawaqa risaasta oo muddo saacado ah iska daba dhacaysay balse waxa iyagu halkaasi soo gaaray gudoomiyaha degmada Sayla Xuseen Idla Barqadle iyo sidoo kale xildhibaan Mustafa Xasan Cabdilaahi استجية وحنا قرار الدولة داسعة ماشينا ولا جوجية إنه هو استجية مو قرار ما قاعد كنا دقمدينه لبعتين لا صعود تما دونينه أنت أنا لو حلنا أنك النود ده يوحد أنا كردمين بس إنه ماشينا إلى شو بتقول لك ورينا أمس الصلوات ترى إلى عليا والله ما قبنا أيوه والله ما قبنا أيوه مظاهرات برلمان ماشي كالصعدة وهذا أركيسا إن dadkii xabad loo adeegsanayo oo xabad loo adeegsanayo oo annaga dadkii celina ay xabad laga dhacayo wada arkaysan Soomaaliland iyo madaxweynaha waxaan sheegaya inayna halkan maamul joogin maamulaha kastamkana waxa ka dambeeya dadkii kalluunka doonanayay ayuu diiday inay galaan badda fuudi calaamada ala qof cashuur keena wax laga dalamayo taas aad looga dagaalamayo كدولنا وانكعبنا معنا كسرسك دقنا سيرة أو دتك ولا يمدن مسوق ماسوق قبيلة كلا صوع ما نتوي يمدن إلا ما أنتم بقول يتمنى ديلان ترينا عند كسر جواب السمرها عندنا يقبل السمرها والسيرة دي سوقني سنة لنا سوقني هكذا يعطيك شو نجمرت وأنا احترامي دم قاري اللي لا شو سكتيني مرة ما بنقول صار كاسك بلاش عديتك وانا اقول واحد كلامه كويس قبيالات يكل الصعب وانا كويس maamulaha kastamka oo soo celiyay xaafadaha qatan caawadan mudaharaadadan lagaga soo horjeedo maamulaha kastamka degmada Sayla tan iyo intii loo soo bedelay degmada Sayla ayaa noqonaya kii afaraad isagoona kii ugu horeeyay ka dhacay magaalada Looyacdo ee ku taala xuduudda u dhaxaysa wadanka Djibouti iyo Somaliland isla mudaharaadkii labaad ayaa ka dhacay magaalada Looyacdo mudaharaadka saddexaad ayaa noqonaya kii shalay ka dhacay degmada Sayla iyadoona ka afraad uu noqonayo mudaharaadka ka dhacay isla maanta degmada Sayla iyadoona wax dhimasho ah ayna ka dhicin halkaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan oo maalmihii ugu dambeysay saxaafadda u marinayeen shacabka ku dhaqan degmada Sayla eedeymo ay ku eedeynayaan maamulaha kastamka degmada Sayla inay wax ka qabato wasiirka wasaaradda maaliyadda Marwo Samsam Cabdi Aadan oo iyadu maalmo kadib timiday gobolkani Salel balse aana soo marin degmada Sayla ayaa waxa ay ku tilmaameen niyad-jab ay ku keentay shacabka ku dhaqan degmada Sayla waa sida hadalka ay u dhigeen mudaharaadadan lagaga soo horjeedo maamulaha kastamka degmada Sayla iyo cabashooyinka ka imanaya shacabka ku dhaqan degmada Sayla oo inta badan ay ka sugayaan shacabka ku dhaqan degmada Sayla xukuumadda Somaliland inay cabashadoodani wax ka qabato waa Ali Axmed Diiriye Ali Digadolol TV-ga caalamiga Star TV magaalada Sayla